shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Daawud Aweesa ayaa warbaahinta la wadaagay qodobada ay isku raaceen madaxda ka soo qayb gashay shirka golaha wadatashiga qaran. ugu horeyn golaha wadatashiga qaran wuxuu tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed ehelada iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso guud ahaan dalka gaar ahaan weerarkii 29 Oktoobar ee agagaarka Zobe ee magaalada Muqdisho. sidoo kale goluhu wuxuu Ilaahay uga baryayaa inta dhaawacantay inuu u boogadhayo inta ku hanti beeshayna bedel khayr qaba alle siiyo. goluhu wuxuu cambaareynayaa gumaadka qawaariishtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. bogaadin golaha wadatashiga qaran waxa uu bogaadinayaa guulaha isdaba joogga ah ay gaareen ciidanka qalabka sida kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka laga ciribtirayo qawaariijta. waxa uu ammaanay gargaarka bini'aadanimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo beesha caalamka. goluhu wuxuu bogaadinayaa dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyo dimuqraadiyadda ay Soomaaliland kusoo caanamaashay wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda. waxa uu bogaadinayaa ganacsiyada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland hirgeliya dekedda Garaacad oo noqotay isku tashi u dayasho mudan. wuxuu bogaadinayaa dadaalka dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hanaanka dimuqraadiyiinta iyo qabashada doorashooyinka qof iyo cod ah. wuxuu bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka. qodobada shirka ka soo baxay iyadoo la tixraacayo qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedyadii shirarkii golaha wadatashiga qaran ee 12 Juun iyo 12 Sebtembar 2022 goluhu wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda. sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. goluhu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha qawaariijta dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. goluhu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka qawaariijta la iskuna dubarido dadaalada kala duwan. goluhu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee la saxeexay Abriil 2017. wixii farsamo ahna waxaa ka shaqeyn doona guddi farsamo. goluhu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ciidamada qaranka ay ka kala wareegayaan mas'uuliyadda amniga ciidamada midowga Afrika ADMIS si dhammaystiran. gurmadka abaaraha iyo la tacaalidda saameynta isbeddelka cimilada. goluhu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka ka jira iyo raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed. goluhu wuxuu hay'adaha gargaarka faraya dardargelinta gurmadka abaaraha. goluhu wuxuu sidoo kale isla qaatay baahida weyn ee loo qabo maareynta iyo la tacaalidda saameynta isbeddelka cimilada iyo dhisidda kaabayaasha u adkeysiga aafooyinka. 3 dardargelinta dib u eegista dastuurka. goluhu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed ee u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. goluhu wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. 4 dimuqraadiyiinta iyo doorashooyinka. in dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka. in dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyayaal diiwaan gashan iyo xisbiyo u tartama golayaasha heerarka kala duwan. in dalka laga qabto 2 doorasho mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka. 5 jadwalka ay habraaca shaqo golaha wadatashiga qaran. goluhu wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hanaanka loo marayo heshiisyada qaab dhismeedkiisa howlaha golaha qodobada wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aamada golaha. goluhu wuxuu isku raacay in labada shir ee soo socda ay qabsoomaan December 2022 iyo Febraayo 2023. halkaas ayuu inooga dhan yahay warmurtiyeedkeena.